بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن dhageystayaal idlahaantiin meel kasto joogtiin kula soo dhawaada wareysi gaar ah oo la yeelanay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee degmada Sheekh oo ku booqanay xafiiskiisa iyo waliba cimilooyinka ay kaga duwan tahay degmada Sheekh gobolada kale ee Soomaaliland magacaygu waa maxamed ibraahim xaaji cabdullaahi waxaan ahay gudoomiyaha barashada iyo tacliinta sare ee degmada Sheekh haddaan ka yar warbixin yar waxbarashada ku saabsan aan ka bixiyo degmada waxaan jirtay waqtigii ingiriiskii hoyga waxbarashada Soomaaliya waqtigii Soomaaliyaba degmada waxaa lagu qiyaasaa ama waxaa la yiraahdaa dugsi boardingkii ugu horreeyay waxaa laga dhisay la yiraahdaa waxaa la dhisay dugsiga Sheekh 1936 dugsiga boardingka dugsiga sare soosumka ay ku jirtaan waxaa la dhisay 1958 waxaad moodaa in habdoorka Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ka baxeen degmada Sheekh taa waxaa tusaale waa Soomaaliland afar madaxweyne soo maray ilaahay xariista janaan ka wareeyay Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo Maxamed Xaaji Ibraahim Egaal ilaahay laga waxa xariistay madaxweynaha hadda jooga Axmed Maxamuud Silaan iyo saddexda madaxweyne waxay ka baxeen dugsiyada Sheekh wax ku barteen halka waxaad ku garan kartaa in Sheekh aan jirta xarunta waxbarashada ee dalka oo dhan ama Soomaaliland iyo Soomaaliya marka waqtiga la isku weyn jiray taasi waa qalab daawo ku soo noqdo degmada waxaa ka dhisan degmada waxaa ka furan iskuulo ay ka mid yihiin jaamacadda xanaanada xoolaha ama beeraha oo veterinary ee Terranova oo jaamacad qaali ah oo Kenya ay maalgeliso waxaa kaloo degmada jooga dugsiga sare ugu qiimaha badan dalka Soomaaliya marka la eego SOS ama SOS intaa waxaa dheer iskuulada dowladda markan ka hadlo waxaa ku yaala degmada Sheekh 22 dugsi hoose 11 dugsi dhexe iyo 3 dugsi sare non formal ahaana waxaa jira 4 dugsi oo non formal ah iyo hal iskuul oo private ah oo isna hoose dhaxaa tirada haddaan dib ugu noqdo ardayda degmada Sheekh dhigata waxaan ku qiyaasi karaa ama ay yihiinba 5420 2456 waa hablo 2950 waa wiilal degmadaydu waxay ka kooban tahay ama waxay xukuntaa 7 tuulo iskuul tuulaan iskuul ka dhisnaan ma jirto ilaahay mahadii maanta mar haddaan horumarka waxbarashada gaarsiinay waxaan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee imika hogaamisay Marweysan Samcad Aadan inta haddaan ka gudbo liiska macallimiinta ama macallimiinta barayaasha iskuulka ama degmada ka shaqeeya 183 macallin 149 waa rag 54 waa dumar halka waxaad ka garan kartaa in macallimiintu ay tahay macallimiin ku filan xagga tababarka macallimiinta hay'adda BOM baa kale 10 sano macallimiinta gacanta ku soo hayso sida tababarka Scotkii jaamacadda Abudna way soo mareen intaas ayaa haddii ka dhigo waxbarashada degmada aan ku soo koobi lahaa degmada haddii aan dib ugu noqdo taariikhdeeda ama cilmi ahaan haddaan yar ka sheegno degmada waxaa lagu qiyaasaa tiro guud deegaan ahaan marka la isku qiyaaso 80,000 qof inay ku nool yihiin magaalada gudaheedana inay ku nool yihiin 10,000 qof si aan ka soo xignay maamulka dowladda hoose ee degmada ama warbixinta ku hayno badda waxaa ka sarreysa 1500 mitir oo u dhiganta 5,000 feet degmada isku weer ahaan waxay ku fadhidaa 1,600 oo kilomitir oo isku weer ah halkaas si dhaafo cimilada degmada roobka cimilada ay hesho ama kuleelaha xilliga roobaadka ayuu kuleelaha inuu badan yahay waxa weeyaan 24 ilaa 36 xilliga qabowga waxay gaadhaa 5.5 ilaa 20 qabowga roobka sanadkaas waa 500 millimeter waxbarasho ahaan iyo sanad dugsiyeedkii uu teerankii hore ka yahay
مدبر هي من وحيان تيرم كي إن امتحانات في قادم تيرم كي رسول وجويه وحن هكذا مهمنا مرة مرصد حالبا وريها ما أنت نقصه بغض حبيس كيجا كسرت رأيه هالجيزة هذا يبدو هالسنتين welcome بانكولا نكسر السلام عليكم قدومية ساشا كويدنا هتاي وحتى القدومية وسارد وحبرشة شيخ مين يجون السكول الدولية عن كوانا هنا وكوا برايفلا أو كفرن دقمة هل سكول بتشره صلحة المودرن سكول بلا سكول كاس لكن ما هي سكول سارد وقطع دوس ياسين بتشره وحبوا برايفلا امتحانات واحد شتى إن هل سكول وكلي وكفرية كوا برايفلا امتحانات يوسرية يدرون امتحانات كسمال الأمر كامتحان كالغاية أبدي يوسر الشيخ برك الله ولا يبدي يوسر كي لما بدك تستحب واحد هاي دوكسيجا أوضح برك إيه برافت كو إيه بيلين سكول كإير كي برافت كوا كلامها كوالي ولا بعد استحب واحد قال أوضح دوكسيجا دولة دي أوضح هذا قال لكن برافت كقول السودان تداري يرى سنة كان محل لو نقرأ مرة عدد أنت وصل اسمها وين بما مستوى والله ما شفت مرة قال الله هو كان أبوه الريح والامتحان النتيجة من الدبس السريع وكلام مرة محمد شرقاب عن قيمة له أرد يجيب سريع وها إن كانت طلبات كانت استحالة حفلية بلا حياة فوفرد النبحي دبس الحياة أول مرة كان كشكل أما دبس الحياة الشيخ مرة كشكل يو مرة سويد جيو هذا قط هاي هذا قلبت هذا صوت صوت هذا يهدأ تايد اسكو كاب برايفت كاب تايبا وحاول سرية صدق حوار بقول سرية كارنت الطوابع لا كارنت كواب مركب يكتان صدق حين بكل شيء قبل وده قال واحد قال كرتين هبوه ربر بدنا سنة كسميين أما سنة ضمن ضمولنا يسمينيان كلمها أي مهم تاني هبو مرور بسوقا كل ونكو يرفع إن هالكاس وحنا أنا نروح برشة لكن تبدأ هذا إنه نذكر ضد البحة وادد soo jireen wax barashadan badan ku soo jiray marka waxaan filayaa in taas duruuf ku xeeran tahay heredity oo leeyahay dadka deganay wax barashada maadaama ingiriiska soo joogeen maadaama iskuuladii ugu horeeyay Soomaaliland ku badnaa ay ka furmaayeen marka wadad soo jeedo kulli xaq wax barashada xitaa waalidiinta marka eegto guddiga waalidiinta iskuulada ka dhisan iskuulada waxba ka qabtaan wax badan bay dhiseen diirbay dhisaan معلمين تعاويان أيام السلام محمد هرمر كستوى دقمة كسعودنا ويكقيب قطع جد الوالين تهي دقمة الوالين كان كروك هكذا قمنا هنغنا نقولها الديقان كي دقمة الشيخ وح قبض بوان أما وح بوان نواقبتي إما كما توحي نولي سنة كان 2014 كا سكول كي هبلها وقارة وسديد فصلة حفيسدي دير كي كوريسي هاي سكول كاسو لغو توبه هبلها خالد عن القدرتان يغنى كان حضمها ما نقولها الديقان كا ويهقاميان ما يقيم الديقان كا يحلقانا ويحو خيابا سكول كا هبلها وإمكا بسميس لما علي كل دو سيئة تشيب iyo mashruucan GPG-ga soo xaashay aad iyo ban dooda hoosana ugu mahadnaqaynaa waatay waxaad xustay in iskuul hablaha imka la sameeyay wadeerkaada loo soo la kiciyay banadii hore ma u jirin iskuul hablaha u khaasa ma uu jiray iskuul hablaha u khaasa laakiin iskuulkii oo nagu yaraaday iskuulkii oo carraj sameeyaha ka baxay ka laga dhisay kadibna dildilaac yeeshay sida ugu badan iskuulkii ugu wareegay iskuul cusub oo dhisnay ugu dambeyntii waxay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada inay maxad u soo jeedinahay dadweynaha Sheekh dadweynaha Sheekh waxaan ku tan lahaa dhiirigelinta asaasiga macallimiinta iyo ardayda inay si lawlaataan oo aad dabagal badan ku sameeysan waalidiinta hadda tihiin ardaydiina macallimiintiina iyo horumarka waddanka ka socda inay la jaan qaadno si ay inagana higsigeena iyo himilooyinka u hagaagto ayaan ku tan lahaa iyagoo mar walba mudan ixtiraam iyo sharaf noo shaqeeyana dhegeystayaal barnaamijkaasi oo la socodsiinayay anigoo ah Xabsaan Sheekh Cabdulaahi tan iyo intaan dib u kulmi doono waa naga intaa